qisadan waxay ku dhacday wiil dhalinyaro ahaa. Habeen saqdhexa wiilka waxa ku soo daahay gurigiisa, waxaana soo maray wada aad u mugdi ah, waxayna ahayd saqdhex habeenimo. wuxuuna arkay nin wada taagan oo tugsanaya oo qoslaya. wiilka ayuu asagoo qoslaya wuxuu weydiiyay lacag. wiilkina ninka qosolkiisa intuu ka xumaaday ayuu ninkii wadada ku kala tuuray, kadibna waa ka sii socday. sababta wiilkii gacmihiisa waxaa ku jiray lacag yar oo keliya, muusan rabin markaas inuu lacagtiisa dhaqaysto. wiilka waa uu soo socday, kadibna wuxuu arkay gaari oo container saaran. containerkana wuxuu ahaa mid guri ka samaysan, waxaana meesha ku dhex jiray maraayadooyin cajiib ah oo sixir camal ah. kadib lacag ayuu dhiibay sida meeshuu galo. lacagta ayaa laga qaaday waana la aqbalay. gudaha markuu soo galay waxaa ku arkay muraayado badan oo cajiib ah. muraayadahani waxay ahaayeen haddii aad hor istaagto nooc kale ayay kaa dhigayeen. wiilkii waa uu la yaabay, muyaaro walba oo istaago nooc kale ayay ka dhigaysaa. mar walba maraayad siduu u istaagay, mar walba wuxuu istaagay maraayad wuxuu ka dhigtay mid horor ah. aad ayuu u naxay anigii. muraayadaas qofka istaaga maba qoslayaba, waa uu naxay. kadibna meesha ayuu si dhaqsile ugu soo cararay, wuxuuna soo aaday dhankii gurigiisa asigoo aad u baqaya. waxuuna la yaabay muraayadaas sida u taalo. kadib waxa uu imaaday gurigiisa, wuxuuna garaacay gambaleelka albaabka. waarnaad u naxtin leh. wiilkii sidaa ujeedaan sidan ayuu isku bedelay. fadlan waxyaabaha sixirka iyo waxyaaba noocaas haddii aad aragto ka fogow. haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar, gambaleelkana furo. aad ayaad u mahadsantahay.